madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxa uu sheegay in markii uu arkay qodobka 50aad farqadiisa 5aad ee dastuurka Galmudug baahida loo qabo in la dedejiyo arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka Galmudug iyo markii uu tixgeliyay xaaladda cakiran ee ka taagan Galmudug uu go'aansaday in geedi u socodka doorashooyinka iyo dib u heshiisiinta Galmudug uu u wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya. Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana madaxda dawladda uu wada hadal ugu socdo magaalada Muqdisho isagoona kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana aan la ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen. deegaanada maamulka Galmudug waxa ku soo wajahan doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug taasi oo la sheegay inay ka dhacayso magaalada Dhuusmareeb ee xarunta maamulka Galmudug iyadoona uu sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre in halkaasi lagu qabanayo gogosha dib u heshiisiinta Galmudug sidoo kalena lagu qabanayo doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug hayeeshee waxa arintaasi si weyn ugu soo horjeestay dadka ku dhaqan magaalada Cadaad ee gobolka Galgaduud iyagoona sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu balanta ugu baxay hadalkaasina ay si weyn ugu soo horjeedaan magaalada Cadaad ee gobolka Galgaduud waxa ka dhacay banaanbaxyo loogu soo horjeedo hadalka uu ka sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre magaalada Dhuusmareeb ee gobolka Galgaduud hadalkan uu soo saaray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa wax u imaanaya iyadoo uu sheegay in uu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay dawladda iyo maamulkiisa.